xogayaha maaliyadda ee xisbiga u cid Faadumo Saciid oo aan kula kulmay magaalada Dubai iyadoo sii jeeda wadamada Finland iyo Sweden oo ay booqasho rasmi ah ku tagayso iyadoo martiqaad ka heshay labadaasi dawladood ayaa waxa iga warantay ujeedada socdaalka iyo waxa loo soo casuumay socdaalkan maanta aan u soo baxay waxa weeyaan martiqaad aan ka helay dawladda Finland oo maxay ku saabsan arrimaha dumarka Somaliland ama kaga wada hadlayno ka Sweden waxa weeyaan kadalik mid iyadana aan dawladda aan ka helnay oo iyadana ku saabsan dhalinyarada dhinaca kale Faadumo Saciid waa xogayaha maaliyadda ee xisbiga u cide ayaa eedayn u soo jeedisay dawladda Somaliland iyadoo sheegtay waa sida dalka u dhigtay in ay xukuumadda Somaliland talada haysa ay ku dhaqanto waxyaabo badan oo ka dhan ah sharciga u yaala wadanka iyadoo sheegay in ay jiraan caburin xagga jir ah oo la xiriira dhinaca saxaafadda tanina bay tiri ay ahayd waxyaabihii ay ka ololeyn jireen xilligii ay xisbiga kulmiye mucaaradka ahaayeen hadaladeedina waxa ka dhahaa wallahi waxaan u aragnaa maxay ahayd xadgudub aad iyo aad u weyn waxa weeyaan saxaafadda horta marka ugu horeysa madax banaani bay leeyihiin xoriyada qowlka waa in la ixtiraamo dawladda Somaliland maanta waxay nasiib darro ay ku tunteen dastuurkii Somaliland iyo dastuurkii saxaafadda iyo dastuurkii xoriyada qowlka iyo dastuurkii muwaadinka waxaana ka sii xun talaabada labaad ay qaadeen oo ahayd inay shirkadihii isgaarsiinta ay ku khasbeen inay website-yada ay maxay xidhaan taasoo iyaduna haddana xadgudub kala ku ay noqotay oo ah waxa la yiraahdaa data protection oo loogu talagalay maxay ahayd heshiiska qofka muwaadinka ee shirkadda la galo heshiiskaas waxa weeyaan inaan la siin karin ama aanu bixin karin ama aanu faragelin karin maxay ahayd wixii service uu markaa uu qofka muwaadinka siinayo taasi haddana ay ku gudubtay dawladdu marka taas waxaan u aragnaa inay maxay ahayd dastuurkii Somaliland ay dhulka si xun u la dhaceen magaci sharaftii iyo maxay ahayd asluubtii ay dawlad iyo xanaanka dawladii ay lahaydna ay ka baxeen taasna waxay nagu kaliftay inaan imanka aanu xuluufo aanu sameeyno oo wax la yiraahdo coalition oo ay isku yimaadeen labada xisbi qaran labada maxay ahayd gole intii xuquuqul insaanka u shaqeynaysay civil society-gi iyo saxaafadii ay soldier ay maxay ahayd horgelayso inteedaas oo dhan bay markay isku wada timi wax kalena maxay ahayd maanu isku iman waxaan aad iyo aad uga caroonay maxay ahayd xadgudubkan fara badan ay dawladdu ay ku dhaqaaqayso ee aan ixtiraameyn dhalinyaradeedii aan ixtiraameyn oo ay maxay ahayd falan xun oo ay maxay ahayd xadhig iyo rasaas iyo dil iyo dhaawacba ay geysanayaan iyagoo aan ixtiraameyn qofkii muwaadinka ahaa ee shalay uu codeeyay iyagoo ixtiraameyn saxaafadii ay ku guureen ay ku shaqaysteen ee kursiga ku fadhiisiyay iyagoo aan eegeyn maxay ahayd muwaadinka xuquuqaha uu leeyahay Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil Hoon Cable TV Dubai